saheliyo ama se hoombaraba waxay soo baxday sanadkii 1980 bishii afraad maalintii ahayd 7 maxamed baan waqtigaa weli joognay laakiin waxaa jirtay xamar iyadoo la joogaa waxa la tirinayay oo si qarsoodiya loo tirinayay oo marba inta lagu kalsoon yahay loo gudbinayay dabeedna maaragtay meel lagu qarinayay waxay ahayd waqtigii dhibaatadii ballaadhnayd ugu horreysay ee bareerka ahayd ay ku timi ummadda Soomaaliyeed waa waqtigii uu dowladda Soomaaliya ka dhisani ay gabagabaysay dadkii ku noolaa gobollada dhexe ee waddanka kadib markii afgembi la isku dayay uu dhicisoobay ayay u aanaysay afgembigaas qayb ka mid ah ummadda Soomaaliyeed kadibna wixii ay hub haysay iyo ciidan waxay ku soo saartay ummadda iyadaa kadibna cagtaa la mariyey iyadoo aan waxba loo reedin dad iyo xoolo yar iyo weyn qaybi halkaasay ku saabsantay qaybta hore waxay tilmaamo ka bixinaysaa ninkan aynu sheegayno balsifooyinkiisa waa dadkii iyo isagii oo wada hadalkaasoo ku imanayay had iyo goor dadku waxbay tabanayaan waxbay doonayaan dareen baahaya laakiin si cad looma sheegi karo laakiin haddana waxba lama qarin jirin oo si sarbeeba oo daboolan oo dadbanba wax had iyo goor waxa la tabanayo loo sheegi jiray marka haddaynu tusaale u qaadano heestaa heliyo aynu ku furanno maaragtay fadhigeennan ama kulankeennan galabta waxaa laga soo dhigay isagii dadkii laba daayeer baa laga soo dhigay isagu waa ninkii bulshaduna waa ta dhadig weeyaan geed baana la hoos fadhiyaa dabeetana malaa uu yar gamcay markuu yar gamcay markaa maradii baa ka dhacday kadibna ceebihiisii iyo foolxumooyinkiisii oo dhan bay aragtay yani bulshadii ama ummaddii oo waqtigii ummaddu si fiican ugu baraarugtay ninkan tilmaamihiisa iyo sifooyinka uu yeelan karo iyo dabeecadihiisa iyo dhaqankiisa marka bulshadii way aragtay isna wuu ogaaday in jir laga hayo ama xan laga hayo uu ka yara daba tego wuxuu jiri bal hubi intii aad huday haddii goldaloolooyinkaaga ama ceebahaaga maaragtay ay wax ka muuqdeen bal in haddii ay ka dhigo maaragtay arrintaa bal ka hubi marka gabadh baynu ka dhignay shacabkii higlo weeye dulin badan waa maamulkiisii goobtaa la joogaa ee dulinka badan leh